Bismillahi Raxmaani Raxiim. Cashirkan waxaan ku baranaynaa een, inaan cadeyno cashirkii hore aan soo qaadan ayuu daba socdaa. Inaan cadeyno IP addresska maaragtay waxaan dhahnay computer walba inuu IP address leeyahay. So marka computer walba markuu rabo inuu internet ku xirmo wuxuu u baahan yahay IP address. Hadduu ahaado laptop, iPad, mobile hadduu yahay. Haddii aad rabto inaad website ama internet aad isticmaasho waxaa u baahan tahay IP address ayaan niri. So marka maxaan rabaa marka maanta inaan inta ka cadeeyo in computerkii ama google.com ama facebook.com ama bbc.com inay isticmaalaan IP address inaan ogaano ayaan rabnaa. So saan u cadeyno maaragtay in maaragtay computer walba uu isticmaalo IP address. Qolo walba oo maaragtay sida google.com shirkadda Google oo kale, Facebook oo kale inay IP address isticmaalaan si ay internetka loogu soo xirmo ama ay wax ugu xirmaan. So marka aan cadeyno bal because bini'aadinka number ma xifdi karo. Maanta number ma garaaci karo. Bini'aadinka wuxuu fahmi karaa magac. Magac ayuu fahmi karaa. Sida Maxamed oo kale, maaragtay Facebook oo kale, Cali oo kale, Google macnaha wax magac ayuu fahmi karaa bini'aadinka. Maanta number ma ku soo celceli karo. So marka aan cadeyno haddii aan tagno oo kale cmd command prompt double click ayaan siinaynaa qaybtan kore. Double click ayaan siinaynaa. Waa kana. So marka waxaan leenahay marka waxaa isticmaalaysaa toolka loo yaqaano ns lookup ayaa isticmaalaysaa. ns lookup toolkaas ayaa isticmaalaysaa. ns lookup waxaa raacsinaysaa facebook.com inter ayaan leenahay. Maanta waxaa noo soo baxday annaga maaragtay IP addresskeena waa kana. Hadda anaga isticmaalayno oo maaragtay ruutaheena. Facebookna waa kana nameka Facebook fiiri. Marka IP addressyada laba IP address isticmaalaan version 6 version 4 ayay isticmaalaan. So markan waa version 6 mid waa midka hadda cusub oo maaragtay oo hadda la rabo in loo gudbo oo maaragtay la isticmaali doono mustaqbalka. Midkaana waa IP version 4 oo hadda la isticmaalo la soo isticmaali jiro waay. So marka waxaan sameynaynaa marka inaan copy dhahno facebook.com wuxuu leeyahay labadan IP address. So marka IP addresskana copy aan leenahay waxaan ku dhufanaynaa website-ka ayaan ku dhufanaynaa waxaan iska dhigaynaa anagoo garaacayna facebook.com oo kale. Numberka ayaan garaacaynaa. facebook.com ku qorayno numberka ayaan garaacaynaa markaas waxaa noo soo bixi doona u fiirso. Facebook page-keeda ayaa noo furmi doona. Haddii asla fiirino copy ayaan leenahay. Kadib waxaan tegaynaa website-ka ayaan furaynaa. Microsoft Edge ka isticmaalaynaa. Markaan wadaa so marka waxaan leenahay right click paste ayaan ku leenahay. Markaan dhahno fiir enter ayaan leenahay. Facebook ayuu noo furay fiiri. Page-ka Facebook ayuu noo furay. Aniga hadda facebook.com ma garaacin. Numberkii oo IP addresska Facebook ay lahaayeen ayaan ku dhuftay. Marka meeshaas waxaa nooga cadaaday in Facebook ay isticmaalaan number. So marka bini'aadinka ma fahmaayo maanta number inuu garaaco. So marka waa loo fududeeyey waxaa la yiri bini'aadinka dadkii injineeradii samaysay ayaa waxay ku fikireen waxay dhaheen war magaca number dadka ma xasuusan karaane aan nidaamkan DNS domain name system-ka aan sameyno si bini'aadinka ugu fududaato in ay magac isticmaalaan. Marka maanta waxaan baranay qaabka IP addresska loo bedelo magac, magacna loo bedelo IP addresska. Haddii aad rabtana maaragtay inaad IP addresska magac u bedeshana waxaad tagi kartaa meesha hadda ns lookup ay ku qoraysaa. Waxaad ku qoraysaa numberka wuxuu kugu bedelayaa maaragtay magaca ayuu ku soo saarayaa. So marka maanta waxaan baranay sida IP addresska magac loogu bedelo. Cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi